soo dhawaada akhyaarta. waxaynu soo baranay qaybta koowaad oo ahayd design theory-ga. markaad theory-yada iyo waxyaalaha soo fahanto inaad ogaato waxa aad u baahan tahay, toolska aad u baahan tahay iyo software-rada aad u baahan tahay si aad u noqoto graphic designer dhammaystiran. marka qaybtan insha Allah waxaynu ku ogaan doonaa qofka graphic designer-ka noqonaya muxuu u baahan yahay horta si uu graphic designer u noqdo. waxaynu eegi doonaa computer iyo equipment-yada u baahan yahay iyo software-rada sida photo editing software, factor based softwares iyo layout softwares. waayo saddexda aad ku shaqeyn doonto insha Allah waa saddexdan. waxyaalaha aad xoogga saarayso waa maxay markaad computer iibsanayso? horta meesha ay wax ka bilaabanayaan waa maxay? waa inaad computer haysataa. graphic designer ma noqon kartid ilaa aad computer heshid, sababtoo ah waxaa la rabaa practical badan inaad samaysid, markasta inaad computer ka hor fadhidid. laakiin se haddii aadan computer lahayn waxa kugu adkaanaysa inaad practical badan samaysid. marka waa inaad computer heshaa. haddii aad marka soo iibsanaysid computerka maxaad ku dooranaysaa? sababta ugu horeysa aad ku dooranayso waa maxay? waa ujeedada aad ka leedahay computerka inaad gadato. ma waxaad rabtaa inaad iska isticmaasho aad dokumentiyada waxaa isaga qorqorato? ma waxaad rabtaa inaad noqoto tusaalahaan video editor? ma waxaad rabtaa inaad noqoto graphic designer? maxaad uga baahan tahay computerka kan inaad u gadato? marka haddaad rabto inaad noqoto graphic designer, computerada qaab baa loo gataa oo jira. video editingka iyo graphic designer aduu content creator haddaad rabto inaad noqoto waa inaad computer fiican aad heshaa oo xoog badan oo applicationada aan kaa istaajin, oo tusaalehaan ramkiisu uu fiican yahay, processorkiisu uu fiican yahay, waxyaalahaas oo dhan aad ku xisaabtantaa. laakiin se haddaadan garanayn computerka iyo waxyaalaha aad uga baahan tahay, just computer ma haysahaa computerka quruxdiisa sare iyo qolofkiisa aad ka eegaysaa, kadib xagga hoose waxaa lagaa gadayaa computer aan wax power lahayn oo aan ku qaban karin shaqadii graphic designerka looga baahnaa. sidoo kale waxyaalaha aad go-aan ku qaadanayso waxaa ka mid ah operating systemkiisa. ma waxaad rabtaa inaad gadatid tusaalahaan Windows? ma waxaad rabtaa inaad gadatid Mac? ma Linux baad rabtaa? waxay ku xiran tahay hadba meeshaad joogto. Soomaaliya tusaalahaan marka la joogo Windowsku waa waxa ugu fiican inuu helno, sababtoo ah applicationada badanaa waxaynu ku isticmaalnaa crack baynu ku isticmaalnaa. Mac-ga way ku adag tahay inaad ku isticmaasho application crack, sababtoo ah isaga security aad buu adag yahay, laakiinse wuu ka xoog badan yahay marka loo eego Windowska oo wuxuu kugu shaqeynayaa si fast ah. laakiinse Windowsku wax kasta wuu qaabilayaa, kuwa xoog badanna waa la helaa, kuwa aad u daciifana waa la helaa. waxay ku xiran tahay aqoonta aad u leedahay computerada. waxyaalaha aad ka eegayso waxaa ka mid ah processorka waa noocee, waanu arki doonaa insha Allah casharka gudihiisa ku arki doonaa. sidoo kale waxaad ka eegaysaa memory-ga ama RAM-ka. waxaa la dhaho RAM-ka ma yahay mid kugu filan, ma yahay mid kuu qaabilaya applicationada aad rabto inaad isticmaasho. storage-ka ma waxaad rabtaa inaad isticmaashid hard disk drive, macnaha storage-ka ma waxaad rabtaa inaad isticmaashid hard disk drive oo kuwii old traditionalka ahaa, mise waxaad rabtaa kuwa cusub oo la dhaho SSD solid state drive oo fast ah. waxay ku xiran tahay aqoonta u leedahay, waa inaad laakiinse iska eegtaa insha Allah waanu arki doonaa. graphic card ma waxaad rabtaa graphic card computer leh mise midaan lahayn? haddaad rabto graphic card computer leh badanaa waxaad ku shaqeyn doontaa si fast ah markaad graphic design-ka joogto, oo waxaad u adeegsan kartaa application xoog badan sida 3D iyo waxa inaad ku samayso. laakiinse computerada caadiga aan graphic card-ka lahayn waxaa ku adag tusaalahaan 3D-ga iyo waxa markaad geyso ama applicationo badan aad isku furto culays buu keenayaa. display-ga ma waxaad rabtaa computer yar oo shaashad yar mise waxaad rabtaa computer shaashad weyn? markaan waxaad garan kartaa markaad ogaato insha Allah qofka graphic designer-ka waxa looga baahan yahay. marka markaad gadanayso computerka waa inaad saartaa horta ujeedada leedahay, operating system noocee abaad gadanaysaa, processorka waa noocee, RAM noocee abaad rabtaa, storage-ka waa intee, graphic card ma leeyahay, shaashadiisu intee leegtahay. intana insha Allah eegi doontaa. marka computerka markaynu u nimaadno iyo waxyaalaha aad uga baahan tahay, PC or Mac labada shirkadoodba way fiican yihiin. Mac waa si fiicnaado powerful ha noqday, laakiin si isagu waa qaali. haddii aad bilow tahay waxaa fiican inaad ku bilowdo Windows si ma ogtahay kharashaadkaagu iyo waxyaalaha isu kabaan. sidoo kale Mac haddaa heli kartona maasha Allah weeye oo powerful weeye, si xoogaba u shaqeeya. applicationaduna kaama cuslaanayaan. kharashkiisa waa inaad ku xisaabtantaa, laakiinse waxaa laga yaabaa inuu aad u badan yahay kharashkiisu. screen size-ka aad adeegsanayso waa inaad ku xisaabtantaa. ma waxaad u baahan tahay computer shaashad weyn oo 14 ilaa 16 inches mise waxaad u baahan tahay 12 ilaa 13 inches mise mid 10 inch ka hooseeya?
okay marka haddaad rabto inaad graphic designer noqoto 10 inch computer horta ku anfici maayo. 10 inch computer ku anfici maayo, waa inuu yahay 12 haddii ugu yaraayo 13 inch. waxay ka weynna waa isticmaali kartaa. sidoo kale shaashad baad ku xiriirsan kartaa computerkaaga weyn oo shaashadaha weyna, marka si raaxo leh baad ku shaqaysanaysaa. laakiin haddaad under 10 inches aad isticmaalayso, wax kugu adkaanaya inaad designkii wixii hoosta iska soo galayaan ciriir badan baad dareemaysaa. okay computerka marka softwarada aynu ku shuban doono maxay u baahan yihiin? softwarada waxay u baahan yihiin tusaale ahaan inuu computerkaagu minimum uu yahay 4GB RAM. ramkiisa macnaha waa inuu 4GB yahay, aanu ka yarayn. marka 4GB markii la joogo graphic designka, 4GB kan waxaa loo yaqaanaa ramka buuqa iyo problemka. madax xanuun buu ku ridayaa, computerka dhan waa isla cuslaanayaa, marka kuma fiicna. waxa fiican even haddii uu yahay 4GB inaad kordhisid oo 8GB ka dhigtid, waana la kordhiyaa ramiska oo hadba intaad u baahan tahay baad ku darsan kartaa. waxa ugu si fiican qofku markuu tusaale ahaan 16GB ram isticmaalayo ayaa ka si fiican. markastoo aad ramkaaga kordhiso waxaad kordhinaysaa powerka computerkaaga. processorkan waxa weeye computerkaaga waxaad rabtaa inuu noqdo Core i5, Core i7, Core i3, waxaad u baahan tahay marka adaa garanaya. laakiinse talageli anigu waxaan ku bixin lahaa graphic designer haddaad rabto inaad noqoto Core i5 waa inaanu ka yarayn computerkaagu, ama waa inuu yahay Core i7 ama waa inuu yahay Core i5. processorkiisuna 64 bit badanaa, hadda 32 bitkii hawadu ka baxay. gigahertzkiisuna waa inaanu 2 ka yarayn. hadduu 2 ka yar yahay culays badan buu kuu keenaya. waa inuu 2 yahay ama wixii ka badan. gigahertzkana waa inaad iska egtaa. okay storagekiisu marka waa maxay? marka aad application ku shubayso tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay waa inaanu ka yarayn tusaale ahaan 3GB oo kale ama wixii ka sarreeya. laakiinse markasta waa inay kuu bannaan tahay 100GB ama wixii ka sarreeya. computerkaagana sida waa inaan isticmaalin. tusaale ahaan hariskiyadu partitions bay kala leeyihiin. sida waa inaan isticmaalin. sida waxaa isticmaala waxyaalaha computerka sida programmada iyo waxyaalaha asaasiyaadka ah. laakiinse haddaad xog ku guratid sida waxaa cuslaanaya computerkaaga, marka waa inaad iska ilaalisaa. okay external hard drive waa inaad haysataa sidaad xogtaada u backup uga samaysato. tusaalehaan qof baa looga u samaysay ama waxaad u samaysay xog dhammaystiran. xogtii tusaalehaan computerka iska gelisay waad weeday, hadhow markuu beri kugu soo laabto uu ku dhoniyo waxaan u baahanahay projectigii inaad tusaalehaan waxyaalaha ay ka bedeshid. okay maba haysid, maxaa kugu dhici karaa marka? inaad mar labaad dib u samaysid oo moogtahay ciriiri aad dareentid. marka waa inaad iska ilaalinaysaa, waa inaad backup leedahay. project kasta waa inaad 6 bilood haysaa, wixii ka badan 6 biloodna aad iska tirtirtaa. marka sidaas waa qorshe wanaagsan. antivirus waa inuu kugu jiraa computerkaaga oo badanaa virusyada iyo waxyaalaha iska ilaalisaa. antivirusyada jira marka halkan ku arki kartaan oo ka faa'iideysan kartaan. waa inaad leedahay tusaale ahaan meesha aad ku shaqaynayso waa inuu kursi ku yaalaa iyo miis. okay kursi iyo miis qofka graphic designerka noqonaya dayac iyo waxaas laguma talagelin. just waa inaad kursigaaga soo qaadataa. miiskaad u baahan tahay maaha miis kala kacsan oo bala ah. just waxaad u baahan tahay miis shaqadaada ku qabsato. kursi iyo miis shaqadaada ku qabsato. miiska tusaale ahaan hadday ugu badato $15 baa lagu sameynayaa. kursigana kuraasta caadiga oo caaga waa soo qaadan kartaa oo tusaale ahaan $6 $7 waxaaga dhan kharashkaaga dhan waxa isugu geynaysaa $25 hadday ugu badato. laakiin si raaxo leh baa ku shaqaysanaysaa. laakiin haddaad computer aad dhigatid tusaale ahaan dhabtaada ama aad la fadhiisato kuma fiicna oo waayo dhabarka aad ku xanuunaya in badanna waad fadhiyaysaa. marka talageliyo weeye qof walba ku talagalo hadduu rabo graphic designer inuu noqdo waa inuu miiskiisa iyo kursigiisa qolkiisa waa inuu yaalaan, sababtoo ah in badan baad fadhiyaysaa. okay marka intaasaynu kusoo koobaynaa waxyaalaha aad u baahan tahay, qalabyada aad u baahan tahay marka aad rabto inaad graphic designer noqoto. guuleysta.